بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maanta waa maalintii labaad oo ay socoto maxkamadda cadaaladda caalamiga ah oo qaadaysa dacwadda u dhaxaysa Soomaaliya iyo Kenya ee ku saabsan badda. dadweynaha Soomaaliyeed meel kasto ay joogaan waxaan rabaa inaan uga mahad celiyo dadaalka iyo isku duubnaanta iyo midnimada ay ku wajaheen arintan oo ay muujiyeen in tani ay tahay waxaan lagu kala qaybsami karin oo dadku aan ku kala qaybsami karin. aad iyo aad ayaa arintaasi guud ahaan ididiilo weyn ay ugu tahay Soomaaliya iyo soo noqoshada iyo soo kabashada Soomaaliya. wax kasta oo xuquuq ah oo aan leenahay haddii aan u midaysanahay way soo noqon. Soomaaliya ma gardarna. Soomaaliya waxay raadsanaysaa xaqeeda, waxayna ku raadsanaysaa shuruucda caalamka oo dhan la isla ogolaaday bari hore ayadoo aanay jirin dacwadan iyo khilaafkan midna. Kenya iyo Soomaaliya waa laba dalo daris ah wada saxiixay wada ogolaaday maxkamadda cadaaladda adduunka dacwadoodana maanta ay hortaalo. dadka Soomaaliyeed in ay sidaa u fahmaan oo ay dawladoodana sidaa ugu duubnaadaan oo ay u garab istaagaan aad iyo aad ayaan dadka Soomaaliyeed ugu hambalyeynayna ugu bogaadinayna uguna mahad celinayna. waxaan rabaa mar kale inaan dadka Soomaaliyeed ugu celiyo aniga oo ah madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyo dawladda Soomaaliya intaba waxaan si cad dadka Soomaaliyeed ugu ballan qaadaynaa marna inaanan tanaasul ka suubinaynin 1 mitir oo ka mid ah biyaha Soomaaliya. marna ma ogolin mana ku hadlin mana isku soo qaadin qalbigeennana kuma jirto 1 mitir oo ka mid ah biyaha Soomaaliya in tanaasul laga sameeyo. aad iyo aad ayaan markale dadka u mahad celinayaa waana guuleysanaynaa ilaahay idinkiis. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.